بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد مسألة كصابسا الابتلاء وحكمته امتحان كلا يصير امتحانه حكى ضمبية حكمتي سمحيتي ومسألة في علم الفلسفة قديمة أدنى اللي سويديو يقول حقيقة أن مسألة الشر وأنا مسائل شدتك ملحدين تهيدتك كوري ريال لكن قرآن كآد بيقول عضهي يضاف فضط وصم من قال إلهي سبحانه وتعالى وتلماميه وحين لنا يدونك أن نكون الله إلهي سبحانه وتعالى كمردقين دار نعيم لأوليائه أدونكم ما هم لغو جنايه والله قلت لك لين لغو نعميسته ضدك أولياء الرب سبحانه وتعالى waxaynu tilmaamaynaa adduunku inaanu ahayn meel mustaqara oo la deganaanayo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay daar ibtilaa'in wa imtixaan waxaa rabbi qur-aanka ku tilmaamaya alladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala wajacalnaa bacdakum libacdin fitna tasbiruun walow yashaau allahu lantasara minhum ولكن ليبلو بعضكم ببعض إلهي وحط المامي يدونك إن امتحان لو كان يدتك لا أيكم أحسن عملا كنا نغم في عن وأسكو كين التحامي با إلهي ليين لا أركوا تصبرون ميا صبر يسان إلهي هدود دونه وإذن أنت مؤمنين توهيلين لها مركز طبع ودنيدا قلب ما تشوقين لكن ربي وحو دونين وسكوكين اتحاما إلهي لي سبحانه وتعالى شرك هي خير كبا ولا سكو اتحاما ونبلوكم بالشر والخير فتنة لقد خلقنا الإنسان في كبد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين تتكبد با وحي يفهمين هدي ابتلاء ودعين وعقوبية بس مشاكل هذا درجته وضد لا يتحامي وحنون نقارن ضد لا عقابي وحين نبدع مع عقاب بوي ماذا هلا نفهم كاسم قمنا نبي عليه الصلاة والسلام وحكى والرمي نبي أيوب وحنون صدي oo 18 sano bukay oo dadka intii u dhaweyd iyo intii ka fogeydba ka tageen laba nin oo asxaabtiisii ka mid ah kuwii ugu dhadhawaa iyo haweenaydiisii wax la mid ku soo hadheen oo maalintii dambe labadii nin ay iyagii isweydiiyeen oo mid yidhi taclamu wallahi laqad adnaba ayubu dhanban ma adnabahu axadun min alcaalamiin waxaan u malaynayaa ayuubuu leeyahay inuu dembaabay dembi aan dunida qof joogaaba dembaabin 18 sanuu jiifay kii kale yidhi wamaa daak maxaad waa maxay waxa ugu malaysay qaala mundu 18 sana lam yarxamhu allah buu yidhi 18 sannadood ilaahay uma naxariisan oo lagama qaadeen xanuunkii markii labadaa nin ay warkaa isu sheegeen kii loo sheegay baa soo socday oo nebi ayuubu sheego wuxuu yidhi saasaa la sheegayaa ayuub baa wuxuu ugu jawaabay laa adri maa taquul gayra ana allaha yaclamu annii kuntu amuru cala arajulayni yatanaasacayni fayadkuraana allah faarjicu ilaa beyti faukafiru canhuma karaahiyata an yudkara allahu ila fi xaq waxaa sheegaysaan inuu garan maayo buu yidhi haddaan soo maro laba is haysta
oo ilaahay subxaanaه wa tacaala ayaan xusi jiray oo waxaan samayn jiray inaan wax bixiyo anigoo necbaysanaya ilaahay subxaanaه wa tacaala si xaqa mooye si kale inaan loo soo hadal qaadin calaa kulli xaal ilaahay subxaanaه wa tacaala markii dambe waa u waxyooday oo wuxuu ku yidhi urkud birijlika hada muqtasalu baaridu wa sharaab qisadatan waa qiso waxoogaa dheer laakiin waxaan uga dan leeyahay uun waxa ay tilmaamaysaa inaanay ciqaab wada ahayn waxaa loo yaqaanaa ibtilaa'aadka dadka ku dhaca laakiin ka mas'alata shari markaynu si guud u eegno allah huwa alcaliimu alxakiim ilaahay wuxuu isku sifaynayaa inuu cilmi badanayay wax kasta ma'aalkooda iyo say u socdaan iyo si walba inuu ogyahay inuu xikmad badanayo shay walba halka ku habboon uu dhigo bini aadamku laakiin dunida ma wada oga mustaqbalkana garan maayo si guudna waxuma arki kara waa indha ku garaadlo intuu markaa arkayo unbaa u muuqata xataa malaa'igtii markay garan waayeen nebi aadam xikmaddii loo keenay ilaahay subxaanaه wa tacaala uu imtixaamay waxay ku jawaabeen subxaanaka laa cilma lana ilaa maa aclamtana innaka anta alcaliimu alxakiim ilaahu adaa cilmi badan oo xikmad badan bay leeyihin intii aadna bartay mooyaane in kale garan mayno erayga xakiimi qur-aanka in badan buu ku soo arooray waxaan uga dan leeyo ibtilaagu wuxuu iman karaa lirafci darajaat wa icdaami اlujuur qofka oo darajadiisa ilaahay rabo inuu kor u qaado ajarkana loo buuro sida inta badan imtixaanaadka ambiyada qabsada iyo dadka akhyaarta ah wuxuu kaloo u yimaadaa litakfiiri sayi'aat qofka oo dembiga ilaahay rabo inuu kaga maydho wuxuu kaloo u yimaadaa isagoo cuquuba mucajala ah ciqaab la soo horumariyey ahlu macaasiga la ciqaabayo iyo markay mubaadara u samayn waayeen inay toobad keenaan wuxuu kaloo u yimaadaa lilibtilaa'i waatamxiis dadka in lagu kala sooco oo khafaaya nufuus kor loo soo saaro oo dadka munaafiqiin iyo mu'miniin iyo dadka wanaagsan iyo dadka xun ilaahay ku kala sooco wuxuu kaloo u soo arooraa bay culammadu yidhaahdaan litarbiyati الrijaali min xuduudi anfusihim dadka oo laga rabaynayo naftooda waxyaabaha ay jeceshahay oo bini aadamka sida ilaahay u abuuray subxaanaه wa tacaala waxyaabo badan oo in laga koriyo uu u baahan baa jira waxaa kaloo uu soo arooraa litadkiiri اlmuncim ilaaha subxaanaه wa tacaala nicmada badan le inuu dareesiyo dadku markay nimcadu joogto iska noqoto waa ilaabaan ilaahayni iyo nimcadiisa waxay xoog u xasuustaan markaa dhibtu timaado wuxuu kaloo u soo arooraa bay culammadu yidhaahdaan liihbaati اlxujati cala annaas dadka cilmi daahira si uu u muuqdo oo aakhiro aanay u helin marmarsiinyo oo xujada loogu ogo intay dunida joogaan wuxuu kaloo u soo arooraa litadkiiri اlmudnibiin kuwa habowsan inay bal rabbi xasuustaan oo marka mashaakilku qabsado ee ilaahay subxaanaه wa tacaala dib u soo xasuustaan iyo walitanbiihi اlghaafiliin hafladu dadka ku dhacday inay toobad keenaan waayo falaslu fi linsaan bay idhaahdaan ataqsiir baa asala intaasoo mas'alo oo aan sheegay iyo in kaleo aan ka dabageyn doono haddii wakhtigu inugu simo waxaan tilmaami doonaa adilada kitaabka alle ku soo aroortay masaa'ilkaa ka warramaysa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markuu ka warramayey dadka ilaahay rabo darajadooda inuu kor u qaado magac iyo maamuus u yeelo xasanaadkooda u labanlaabo sida ambiyada iyo saalixiinta iyo inta ka agdhow wuxuu nebiga la weydiiyey ayu nnaasi ashaddu balaa dadka yaa u dhib badan qaala alambiyaau ثuma alamhalu falamhal yubtala الrajulu calىa xasabi diinih dadka waxa uu mashaakil badan buu nebigu ku tilmaamay nebiyada
dabeetana uma alamhalu falamhal siday nebiyada ugu soo eegiyiin ugu soo kala dhadhowyiin ama ugu kala fiican yihiin qofka waxaa la itixaamaa kolba diintiisu intay laag tahay buu nebigu yidhi fain kaana fii diinihi hadday diintiisu mid adag tahayna balaaga waa lagu adkeeyaa hadday diintiisa dacfi iyo jileec ku jirana waa loo khafayfiyaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam famaa yazaalu kadalika xataa yamshi cala alardi maa lahu min demb sida imtixaankaasi ugu socda ilaahay wixii dembi qofkan korkiisa saaraay oo dhan lagaga tahiraa idan waxaynu leenahay culammadu waxay yidhaahdaan ambiyada waxaa loo itixaamay in ajarka loo buuro oo fadligooda uu kaamil noqdo oo bini aadamka loo tusiyo sabirkooda iyo dadka inay qudwo ugu noqdaan bini aadamku qudwo kama maarmo nebigaa ilaahay ambiyadii hore leeyay fabihudaahu muqtadi dadka kalena inay nebi maxamed ku daydaan calayhi salaatu wasalaam marka naqsi iyo cadaab maahe waa nebiga oo ummadda qudwo looga dhigayo saa awgeed baa nebi maxamed wuxuu soo maray noloshu waxay martoo dhan agoonnimo rajaynimo wax la-aan iyadoo la eryayo la maagayo iyadoo dil lagu xukumay iyadoo dagaal lagu qaaday iyadoo uu guulaystay iyadoo uu xoolaystay iyadoo la kala doorransiiyey boqornimo iyo addoonnimo kuu qaadanayo risaaladuu la socoto noloshu waxay martoo dhan isagoo aabba noqday oo 9 reer oday u noqday isagoo qaadi noqday isagoo madaxweyne noqday isagoo rasuul waxa insaan uu shaqo qaban karo oo dhan ayuu qudwa ku yahay waxaasoo bini aadam imtixaankay maraanna wuu soo wada maray taa macnaheedu waxa weeyaan in la rabo in kor loo qaado dikrigiisa iyo magaciisa ilaahay korraysiiyo sabirkiisa iyo adaygiisa iyo dadnimadiisa dadka la tusiyo si uu qudwa ugu noqdo idan waxaan leenahay alamhalu falamhal caynkaas uu noqdaa wuxuu kaloo u soo arooray culammadu yidhaha litakfiiri sayi'aat man yacmal suu'an yujza bih ama maa yusiibu lmuslima min hammin walaa xusn nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam muslimka ma haleela ama wixii haleela ee warwara ee murugo ah ee dhib ah oo dhan oo soo gaadha xataa qodaximo muddo ilaa danbaa lagaga dhaafaa buu nebigu tilmaamaya man yurid illaahu bihi khayran yusib minhu qofkii ilaahay khayr la doono waa la itixaamaa in sha allah wakhtigoos ka kooban axaadiistaan sheegi doonaa culammadu waa axaadiis ama saxiixay ku tilmaamtay ama xasan ku tilmaameen waxa uu nebigu tilmaamayaa maa min muslimin yushaaku shawkatan famaa fawqaha ilaa kutibat lahu biha daraja qof mu'mina oo qodaxi muddaa ma jiro ilaa iyo darajo ayaa kor loogu yeelaa wa muxyat canhu khatii'a dembina waa lagaga maydhaa ina cidamu ljazaa'i maca cidami lbalaa abaalmarka weynidiisu waxay ku xidhan tahay imtixaanka lagu mariyey weynidiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu duul jeclaado wuu itixaamaa faman radiya falahu ridaa waman sakhita falahu sukht qofkii raalli noqdaana ilaahay raalli ahaanshihiisu helaa qofkii cadho iyo warwariyo murugo iyo ciilkaambi ka qaadaana cadho alluu helaa waxaynu kaloo leenahay wuxuu kaloo balaagu u yimaadaa bisababi almacaasi wadunuub saa daraaddeed wuxuu noqdaa cuquuba mucajala ciqaabtiiyo qofkan dunida loogu soo horumariyey wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir wixii balaayo idin haleelaa waa wax gacmihiinnu kasbadeen in badanna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idinka cafiya ama dib uu idinku dhigay idaa araada allahu bicabdihi alkhayr cajala lahu alcuquubata fi dunya qof haddii ilaahay wanaag la doono ciqaabtiisii baa loo soo horumariyaa aakhiro wuxuu tagaa isagoo maxay dunida intii dunuubtii uu galay badidoo dunida lagaga maydhay qof haddii shar lala doona buu nebigu yidhina cuquub oo dhan baa loo ururiyaa aakhira loogu dibdhigaa bini aadamku asalkiisu taqsiir iyo haddana wixii uu cuquubo galoo dhan baa dib loogu dhigay oo aakhiro markaasi ayaa loo oofiyaa wuxuu dhib geystay oo dhan alghaalib cala alinsaanna waa taqsiir وعدم القيام بالواجب فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله intaa masale hore aan hadda soo sheegay xaasilkeedu wuxuu yahay
balaayaadkiiyo imtixaanku wuxuu yimaadaa qofka darajadiisa in kor loo qaado ajarkana loo buuro sida ambiyadiiyo inta wanaagsan wuxuu kaloo u yimaadaa in dembiga lagaga dhaafo oo aakhiro u yimaado isagoo aan dembi lahayn wuxuu kaloo u yimaadaa cuquubo loo soo dedejiyo isagoo ah oo adduunka lagu ciqaabayo bacd alculamaa baa xataa waxay tilmaamaan saddexdaa masale hore aan sheegay calaamado lagu kala garto xataa in la heli karo alimaam cabdilqaadir aljaylaani baa wuxuu leeyahay calaamada ibtilaaga markuu cuquub iyo muqaabalo u yimaado waxaa lagu gartaa buu yidhi qofka dadka inta badan ay ku dhacdo waxaa ku dhaca buu leeyahay cadamu sabr cinda wujuudi albalaa waljazaci washakwa ila alkhalq ayaa ku dhaca buu leeyahay kuway dembi dhaafka u tahay ee dembiga lagaga maydhayana waxaa lagu gartaa buu yidhi wujuudu sabri aljamiili min gayri shakwa way sabraan cid kalena waan rabbigood ahaynna uma cawdaan cibaadaduna culays kuma noqotee cibaadadoodii bay sii wataan kuwa kor loogu qaadayo ee irtifaacu darajaadka waxaa lagu gartaa buu leeyahy raalli ahaanshiyo mutlaqa bay la yimaadaan markaa dhibtu qabsato iyo tumaniinati nafs inay naftoodu xasisho oo qadarka ilaahay subxaanahu wa tacaala aanay argagax ka gelin saasuu tilmaamaya waxaynu kaloo leenahay wuxuu u iman karaa ibtilaaga adduunku litamxiisi watamyiiz dadku nabadda markuu wada joogo waa wada geesi waa wada fiican yahay waa islaamnimuu wada sheeganaya imtixaanku markuu yimaadana dadku way kala socmaan markaynu halkan iska fadhino nin waliba inuu geesiyu isu haystaa laakiin hadday dhinaceenna ka sanqadho markaasay muuqanaysaa waxaynu nahay xaqiiqadu markaasay soo baxaysaa dadku wuxuu rumaysan yahay haddii wax heli lahaa dadkao dhan inuu wax siin lahaa laakiin xaqiiqadu waxay soo bixi lahayd haddaad adna wax haysato dad fuqariina kuu yimaadaan waxaad yeeli lahayd alxuquuqu kaiira intaad tidhaahda baad gacanta hoosta gelin lahayd dad badani idan nolosha practicalkaa dadka kala saara oo real lifeka marka la galo baa dadku kala baxaa marka waa litamyiiz munaafiq iyo mu'minka lama kala garteen haddaan imtixaanaadku dhicin ilaahay baa markaa wuxuu leeyahay iyadoo la tilmaamayo tamyiizu sufuuf in la samaynayo qadiyadii uxud maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayh xataa yamiiza alkhabiisa min alطayib wamaa kaana allahu liyuطlicakum cala algayb ilaahay subxaanaه wa tacaala mu'miniintu siday yihiin kagama tegaya baa ilaahay leeyahy ilaa la kala sooco kuwooda xun iyo kuwooda san qaybkana ilaahaydan daalacsiin maayo oo intaynu cirka eegno arki mayno war hebello waa munaafiqiyo kuu dhuumanin cidna ku odhan kari mayno idan qaybka ma ogin laakiin maxaa qualitigeenna iyo dadnimadeenna iyo waxaynu nay soo saaraya waxaa soo saaraya imtixaanaadka marka beledu dhacdo marka gaajadu timaaddo ee adigoo in yare walba haystay haddana lagu martiyo waxaad yeelaysaa markaasay muuqanaysaa inaad qarsato tidhaahdo mee guriga waxba ma yaalina hore u sii soco iyo inaad iskala nafqaybsato qofkan muslimkee baahan markaasay imanaysaa idan imtixaanku wuxuu kala saaraa litamyiiz buu u yimaada sufuufta si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatana aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin ilaahay wuxuu leeyay dadku ma waxay u malaynayaan aamanaa inaanu kaga tegayno waa la imtixaamayaa baa ilaahay leeyahy sidii kuwii idinka horreeyey baanu u imtixaannay si aanu u muujinno ay u muuqdaan kuwa runta ka sheegaya waxaanay sheeganayaan iyo qolada beenaalayaashee dadku dhinaca ka raacay say u kala muuqdaan walanabluwannakum xataa naclama almujaahidiina minkum wasaabiriina wanabluwa akhbaarakum waa idin imtixaamaynaa baa ilaahay leeyahy ilaa ay ka muuqdaan kuwiina mujaahidiinta ah kuwiina sabraya warkiinaan dabadda soo dhigayaa baa ilaahay leeyahy waxay kaloo culummadu yidhaahdaan wuxuu u yimaadaa liihbaati alxuja aakhiro lagugu xukumi maayo qura waxaad qarsatay ee waa in wax walba markhaati la keenaa si lagugu caddeeyo xujada lagugu oogana imtixaanka kani waa waxa xujada kugu oogaya ilaahayna markaasuu leeyahy falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin awalba ilaahay waa ogaa laakiin waxaa la rabaa in lagu muujiyo oo ay caddaato inaad been sheegaysay
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا سألوا قادوا وعد يكوى مؤمن كا يكوى منافقين تابا ودع ضيبا إلى هيلي دعدوين كاس وحين قالوا لنا الصفوف تقول الله كلا صار ما يه أدي قالوا تببر يا نفت هذا دوغانيسا اسمه أوجن وحبين نسي اسمود وحين نسي برنا إننا مركب امتحان كلاينا مريو نما طهي مال أنت اسمه دوغانيسا أنت تسبر على هسكك شرت واحد اسمه سواح كستينا طهي سادرات ديد هي وحين لنا واحد سوغانيسا إن تقائد تهي إن تجيس تهي إن تدقس تهي إن صبريسو waxaad is ogaanaysaa shadaa'iddu markay timaado waxay yidhaahdaan shadaa'iddu waxay faydaa maaskaraha bini aadamku isa saaro nin waliba maaskaro qurux badan baa saaran oo sheegaysa nin rageed inuu yahay laakiin taasi waxay faydmaysaa marka dhibtu dhacdo oo bawaatinul umuur ay soo baxaysaa oo saadiq iyo kaadibka la kala garanaya oo muraa'iga iyo mukhlisku ay soo kala baxayaan walidaalika baa imaamu shaafici raxmatullaahi calayh أيها قبل تيرنا يا جزا الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي وما شكري لها حمدا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي بي. إمام الشافعي قبل يا وين بوها هنشري اللغة العربية ما سجع عليه قبل وحيري إلهي هكا المريو دبته خير من إلهي دبهسي يا بولي إن كستوي عن لفتي وقت كيسينا نلقوه haddana waa u ducaynayaa buu leeyahay mahadnaqaygaan dhibta u mahadnaqayaa maaha inaan yacnii ammaanayo laakiin waxay kala bartay buu yidhi dadka intaanu colka nahayo iyo intaanu asxaabtanay baan ku kala bartay buu leeyahay yacnii dhibtani anay dadka i bartay buu leeyahay ragga waxaanu saaxiibba nahay iyo waxaanan waxba isu ahayn ayay kala bartay buu leeyahay alfudayl ibnu ciyaad ba isna wuxuu leeyahay الناس ما داموا في عافية مستورون دتكو انت اي نبض يبرارها كجيران وودا استرين بوليه فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم بوليه مركا دبت مادو امتحانكو يمادو ايان نول بدبتي صباح دا بوليه حقيقتي سمركا سالو غادا فصار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه ساوغيت امتحانك وهو حددك منازشه دموشيه أبي بكر الصديق لو بحيه يعني قوب نبي محمد لبيني حادثة الإسراء مركي داعضي هيدا هذا أبو بكر وصاحب كاوحو شيغانيا حالي انتو هلكن كغوريي إنه بيت المقدس تجايو هذا صور نقضي بو شيغانيا ماشي سفر كيقول بالله سي صعدو بالله صعدو ساسو شيغان يا ابوي سي وحكى لك السوقيين بو خدي اشهد انه صادق waxaan markhaati ka ahay buu inuu run sheegayo inuu run leeyahay saana nu rumaysan buu inuu halka tago ka soo noqday anigoo warka ka fog rumaysto samada la iga soo waxyoodan rumaystay ma shaan baan ka soo noqday baan ka rumaysan waayay abuu tilmaamaya fasumya bidalika siddiq إلهي القرآن كوحلي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين آيات كسيلة وحتى الماما يا مؤمنين تدبطا إن ينرك رميي وحي الله بلان قادين جد كهينتي سقارنا وكوجو أنا وكودنتين قارنا وسجيان وحبدلنا اسبدلنا ما يسمعينين عكس جودنا إلهي وحلي دتك قاربا كمدا يدا هذا إلهي بان الرميني مركا امتحان يري ما دنا بنا آدم كدبتي سي عذابك إلهي وكلا كدقا ويعني دين كعرر باكو دعا وسادوني بدني مككتاجن قالكم مركو عبار هنشبوه دد بدن بعدين تلقوا كريلاي
ومن الناس من يعبد الله على حرف dadka waxaa ka mid ah mid dacalka ilaahay ku caabuda hadduu khayr helana yidhaahda diintu waa fiicantahy haddii mashaakil soo gaadhana war diintan baa waxaa soo dhiba waynugu adkaysan yidhaahda diinta aynugu adkayseen qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa raganimadooda ay soo saartay shadaa'idda tani kuwii ay ku soo degtay wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa idan waxaynu leenahay tacriifu اlinsaani binafsih wa tanqiyatihi min xuduudi nafsi wa sayi'aatih qofku inuu naftiisa barto waxyaabaha aan quruxda badnayne weli ku suganna uu ka takhallusi karo uu tarbiyoobi karo waxa lagu bartaa waa shadaa'iddaas iyo imtixaanaadkaasi waayo insaanku hadduu nimco iskaga jiro uun ilaahay wuxuu tilmaamaya kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istagna bini aadamku waa qooqa waa xadgudbaa hadduu arko inuu kaaftoomay saa daraaddeed waxaynu leenahay xataa saxaabadii nebi maxamed baa ilaahay hufayey dhexdooda gaswatu xunayn maxay yidhahdeen walle maanta yaraan uma jabno markay arkeen iyagoo dhowr iyo 10 kun oo isdhinac socda laakiin haddana way jabeen ilaahay baa wuxuu leeyay wayowma xunaynin id acjabatkum kahratukum cujbigaasaa laga saarayay waxaad xasuusataan maalintii xunayn markay idin yaab gelisay tiro badnidiinnu baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala saa daraaddeed adigaa lagu tamxiisinayaa walayumaxis allahu aladiina aamanuu waxaa imtixaanku u dhacay in ilaahay subxaana wa tacaala kala miiro kuwa iimaanka leh wayamxaq alkaafiriin iyana waa dhanka kale ibtilaagu markaa isagaa qaadada rabeeya hoggaanka umamka hoggaamiya waxa saqliya oo ku soo baxaa imtixaanka saaxibu tajriba markaasuu noqdaa qof waaya aragganaynu sheegayna waa maxay haddaad nimco un iska intaad noolaydba guriga hooyada beris ka cunaysay ama kaaga un aad dhargaysay balana aanay kula kulmin waaya arag ma tiid habeen maad jirin waaya aragga la sheegayaa waa maxay waa qof imtixaanaadka noloshu ay soo qabsadeen saa daraaddeed qaadada la sheegayo waa dad noloshu imtixaankeedu uu saqliyey amase uu dhilay ilaa iyo uu ka reebay waxa ay carabtu ku mahmaahaan albixaaru alhaadi'a bay yidhaahdaan laa tasnacu baxaaran maahira badda degani dee idinkaa reer badeedee bal dhegayso badda degani baxaar mahaara ma soo saarta bay yidhaahdeen naaquude xariifa ma soo saarto nin bad iska deganuun mari jiray laakiin marka uu naaquuduhu maro bad kicisteedu badanta iyo dhibteedu markaasuu khabiir noqdaa oo la yidhaahdaa ninka danta wadaa maanta waa khabiirun bihadihi lumuur ama haddaanu horeba xeebtuunu joogi jiro meelahan xeebtan u eriyi jiray maalintay qabsato ma wadi karayo saa awgeed waxay yidhaahdaan ibtilaagu raganimada ragguu soo saaraa amase qofka wuxuu u diyaariyaa litamkiini fi lardi bay yidhaahdaan dadku inay dhulka qabsadaan oo makansadaan waxa ka horaysa raggeedii in la diyaariyo ama qaada noqon lahaa dadka hoggaamin lahaa ama dhibta u adkaysan lahaa ama waaya arag noqon lahaaye noloshoo dhan wixii imtixaan soo maray garan kari lahaa saa daraaddeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala rusushii dadka hoggaaminaysay aadanaha u doortay inay imtixaankaas oo dhan maraan ilaa qur-aanka ilaahay ka leeya alam yajidka yatiiman faawa nebi maxamed oo adoo agoona miyaan ilaahay ku helin oo dabeetana ku hoynin suuraddoo dhamme waxay tilmaamaysaa tarbiyadii ilaahay soo siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka nicmada ku korana inta badan hoggaanka way ku fashilaan ambiyadu markaa waxay tusaale u yihiin dadkoo dhan hadday madaxda iyo siyaasiyiintu inay yidhaahdaan
dhalintiina iyo wadaadadiitana waa iska cayaaraysaane bahasha siyaasadda la yidhaha haddaad timaado iyadaa munaafiqnimada wadata ku odhan iyadaa kursiga wadata ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramay taa haysaan tu ka waaweyn nebiyahayay alcasri dahabi libani israa'iil waa wakhtigay ambiye hoggaaminaysay ama se saalixiin taaluut markuu hoggaaminayey ama nebi daawuud markuu hoggaaminayey ama nebi sulaymaan oo boqortooyo haystay aan dunida wax la midi jirin haddana ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa nicma alcabdu inuu mid waliba ahaa nicma alcabdu innahu awaaba inay tusaale u yihiin bashariyadoo dhan ka siyaasiga iyo ka xaakimka iyo ka sultaanka iyo ka miskiinka iyo ka sugjoogka iyo ka wadaadkaaba inay tusaale u noqdaan asxaabu tajriba inay noqdaan imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi baa waxaa lagu yidhi ayuhumaa afdalu alsabru walmixna am altamkiin in lagu itixaamo aada sabirto ama in maamulka lagu dhiibo dee lagu makansiiyo shiddadu inay ku marto iyo inaad madaxnimada hesho keebaa fiican bay yidhaahdeen markaasuu wuxuu yidhi miyaa laysba makansiiyaa in lays itixaamo mooyaane waxaana sheegaysaan ma jirta buu leeyahy dadka sharciga la makansiiye meel qabsaday waa dad buu leeyahy la itixaamay oo la saqliyey oo imtixaanku uu soo maro soo sabray waa kuwa waxaynu kaloo leenahay imtixaanku wuxuu u yimaadaa ilaahay nicmadiisa in lagu xasuusiyo bini aadamku nicmada markuu haysto ma oga inteenna caawa halkan fadhida yaa saaka intuu soo toosay yidhi alxamdu lilaahi war saaka waa caafimaad qabaa mise waad shaqo tagtay una waxa maad xasuusanin inta dhakhtarka joogtaa saaka wuxuunbay is leeyihin ma nin unbaa labadiisa lugood iskaga socdo oo caafimaad qaba idan nicmada waxaa la gartaa marka laga qaado inta la hayo in yar baa dadka xasuusata inta la hayo in yar baa dadka xasuusata si nicmada lagu xasuusiyay ka mid tahay bay leeyihin imtixaanku maalinta xanuun yare kugu dhacaad garanaysaa ilaahay wuxuu nimco ku siiyey shalay waxaase shalay laga yaabaa inaad lahayd oo maxaan caafimaad ku haystaa maantaba maan qadayn inaad lahayd laakiin marka aad jiifsataa baad garanaysaa aad iska qada la-aatide mar haddaad soconaysay inaad barwaaqo badan ku jirtay ama nicmo badan inaad haysatay saa daraaddeed ayaa culammadu waxay idhahdaan nicmadu waa tadkiirun bilmuncim waa xasuusin bilaagu baan leeyahay imtixaanku waa xasuusin lagu xasuusinayo allah subxaanaه wa tacaala weyn fadligiisa iyo wixii uu ku siiyey walidalik baa ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay walow basata allahu الrisqa licibaadih labaqow fi lard ilaahay dadka hadduu xoolaha ka wada dhergin lahaa waa qooqi lahaayeen baa ilaahay leeyahy walakin yunazilu biqadari maa yashaa innahu bicibaadihi khabiirun basiir ilaahay adduunka dhaqaalaha in go-an buu soo dejiyaa oo addoommadiisa siiya waayo isagaa u aqoon badan oo u aragti dheer oo garanaya waxa u suubamiyo waxa u islaaxa isagaa garanaya ibtilaagu bay yidhaahdaan waxaa kaloo loogu talagalay in adduunkaba xaqiiqadiisa layna tusiyo in layna tusiyo inuu adduunku wax zaa'iloo tegaya yihi inaynan isagun dul fadhiina si aynu aakhiro u xasuusanno inaynu garanno tani meel lagu mashquulo inaan ahayn nebi aadam maxaa ilaahay ku yidhi iyadoo xaqiiqatu dunyaa loo tilmaamayo faqulnaa yaa aadamu ina hada caduwu laka walizawjik falaa yukhrijannakuma min aljanna fatashqa war yuu kaa saarin shaydaan baa la yidhi jannada adiga iyo reerkaaga oo haddaad jannada ka baxdaan maxaa dhacaya waa kadeedmaysaan marka waxaa layna leeyahay adduunku waa kadeede meeshay tay inaad u hilowdo ama u xoogsato ama raganimadaada iyo xooggaaga iyo xoolahaaga iyo caqligaagaba inaad gelisaa waa maxay waa degaanka dhabta ah haddaad safartay oo meel ku soo baxdo ma is odhan lahayd daara ka jeexo mise waxaad is odhan lahayd wargeedkaa intaad hadhsato kugu filane dantaada ku gaadho dee kollayba waad carraabaysaa ee kasii carrow maadaama aad rumaysantahay inaad meeshani meel la dega ahayn waxaad is leedahay maxay ha ku mashquulina xaggaad ku socotay qabo qofka mu'minka adduunka saasuu u arkaa meel uu ku mashquulo uma arko marka waxaa looga dhigay inay munaqasaadku ku badan yihiin waxyaabaha lagu margadaa inay ku badan yihiin waxaa looga dhigay inaad u hilowdo deegaankii rasmiga ahaa
oo aad ogaatid halkani meel la degay inaan ahayn saawgeed baa ilaahay wuxuu ku leeyahay waroy jannada ha ka bixin aadanow waayo ina laka an laa tajuuca fiiha walaa tacra wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxa war halkan baa isku dhamman laga helaa halkan baan gaajo iyo qaawani iyo haraad iyo cadceed iyo waxa bini aadamka dhiba midnaba halkan baan lagu arag marka adduunka munaqasaadkiisu waxa ayna dareensiinayaan xayaat kaamil inaanay halkan jirin wa ina addaara alaakhirata lahiya alxayawaan low kaanuu yaclamuun war aakhira nololi jirtaa baa ilaahay leeyahay hadday dadku garanayaan tani maha meeshii nolosha ee aakhira nololi jirtaa tani waa meeshii imtixaanka baa layna leeyahay laqad khalaqna alinsaana fii kabad waxaan ku gebagabayn doonaa adduunka waxaa imtixaanka loo keenay in aakhiro layna jeclaysiiyo oo aakhiro ay noqoto meesha hunguriga bayniinaga hayo ee isku dhammuhu yaalliin ee nimco noocay tahayba ay taallo akhiiran waxaan leenahay imtixaanka waxaa loo keenaa inta rabbi moogan in rabbi la xasuusiyo soomaalidu maxay yidhaahdaan markay kadantahay alla taqaan bay yidhaahdaan saxiikaa maaha markaa dhibtu haysato dadku ilaahay ugu wada yidhaahdaa xataa gaalka xataa kuwa ilaahay diida nin mulxidiintii waaweynaa ka mid ahaayoo markii dambe islaamay oo dhakhtaraba wuxuu ka warramayay waktiguu ilxaadka ahaa waa dhakhtar specialista dabeetana inan yaroo u dhalay inantaasuu haystay baa xanuunsatay markaasaa dhakhtarkii la keenay dabeetana dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen khalaas waxba lagama qaban karo way soconaysaa waan eegay buu yidhi waxaan arkay buu yidhi ilmihii oo soo madoobaaday astaamihii geeridu ay ka muuqato dabeetana waan dul taagnaan kari waayo waan iskaga dhaqaaqay buu yidhi meel cidlaa intaan tegey ayaan idhi buu yidhi ilaa uu haddaad jirto hadda weli waa shakisan yihin ilaa uu haddaad jirto oo aad taa yar kiciso waxaan kuu ballan qaaday inaan ku rumeeyo diintaada xaqa anaan raadceeyo intuu ilaahay baryayey baa ilaahay baryadii baa ka aqbalayo tii yaraydunbaaba wuu soo noqday dhakhaatiirtii oo wada faraxsanoo leh something happened waxbaa dhacay miracle baa dhacay bay dhahay mucjiza meesha ka muuqata tii yarayd mar qurunbaaba waxeediiba iswada bedeleen markaasaan raadiyay buu yidhi waxaan uga dan leeyahay gaalkii weynaa ee gaalada mid ka mid ah wuxuu ku mahmaahi jiray mahmaaha waxay yidhahdeen there is no atheist in the foxholes bay yidhaahdaan mulxid ma jiro dhufayska bay dhahay marka lagu jiro xabaddu hadday dhacayso ilaahayow bay dadka wada yidhaahdaan buu leeyahay waa nin gaaleed mulxid ma jira buu leeyahay marka dhufayska lagu jiro waxaan uga dan leeyahay waa tanbiih lilghaafiliin bay culammadu yidhaahdaan wa tadkiiri lilmudnibiin dhibaatooyinku waxa weeyaan kuwa ghaafilkaana waa la xasuusinaya khafladaa laga faydaya kuwa mudnibkaana ilaahay baa la baraya subxaana wa tacaala oo waxaa la baraya rabbuna alxaliim inuu yahay oo sabuur yahay oo cafuw yahay oo ghafuur yahay oo ghafaar iyo raxmaan iyo raxiim yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala wakhti ina siiyey aynu ku toobad keenno oo hadday khafladaynugu dhacdana in layna yaro qanqanjiidhiyo si khafladda laynooga toosiyo marka waa qanqanjiidho yaroo maxay weli lagu leeyahy waroy jaanis baad haysataaye jidka rabbi maad ku soo noqon rabbi ku leeyahy subxaana wa tacaala waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay waxa dhib idinku dhacday horta waa dunuubtiinnii in badanna ilaahay wuu idinka dhaafay laakiin waxaa looga dan leeyahay in laydin kiciyo oo aayaad badan baa ilahay leeyahy walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbar lacallahum yarjicuun baa ilaahay yidhi cadaabka dhow baanu dhadhansiin baa ilaahay yidhi intaanu imanin cadaabka weyni maxaa loo dhadhansiinayaa lacallahum yarjicuun baa ilaahay leeyahy ka yarjicu bal inay ina dib u soo laabtaan kam yar baa la dhadhansiinayaa baa ilaahay leeyahy dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas ilaahay wuxuu tilmaamayaa intaa kadib waxay geysteen dadku baa bad iyo berriba fasahaadiyey bad iyo berriba waxaa fasahaadiya bini aadamka wixiisa maanta maxaa ay ka warramayaan environmental problem climatical change environmentkii baa isbedelay climatekii baa isbedelay
dabeetana cilmi baadhistoodii waxay keentay war meesha innagaa khalkhalinay bay leeyihin waxaanaynu hawo sii daynay waxaanaynu samaynay waxaanaynu qodnay waxaan bini aadamku isagaa fasahaadiyay bay leeyihin marka fil birri walbaxri labadaba aadanaha fasaadkiisii weeyaan ilaahay wuxuu leeyahy waxaan sidaa u yeelay liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun wixii ay samaynayeen wax ka mid ah in la dhadhansiiyo lacallahum yarjicuun cumuuman waxay culammadu yidhaahdaan almu'akhada fi dunya hiya alistithnaa bay yidhaahdaan gaalka in dunida lagu abaalmariyo wixii dambaababa la dabargooyaa waa istithnaaga maaha qaacidada bay yidhaahdaan qaacidadu waa in dadka loo kaadiyo intay geeridooda wakhtigii dhimashadooda ka gaadhayso ilaahayna waa xaliim waana sabuur waana cafow waana ghafuur waana araxmaan araxiim fursadaasuu bixiyey bal inay dib u toobad keenaan waayo haddii qofkii xunba la qabto adduunka dee cidima joogteen walow yu'aakhidu allahu nnaasa bidulmihim maa taraka calayha min daaba baa ilaahay yidhi dadku markay dambaabaanba haddii aan qabtaba ilaahay leeyahy cidiba meesha kuma hadheen walaakin yu'akhiruhum ilaa ajalin musama faإida jaءa ajaluhum laa yastakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun warabuka algafuuru du raxma ilaahay waa ku dembi dhaaf badan oo naxariisu saaxiiba low yu'aakhiduhum bima kasabuu lacajala lahum اlcadaab bal lahum mawcidun lan yajiduu min duunihi maw'ila waxay kasbadeen haddii ilaahay cadaabka ugu soo dedejiyo dee meesha cidi kuma hadheen baa la tilmaamaya laakiin ilaahay wuxuu u yeelay mawcid kale ballan kalaa loo qabtay waan cidina dhaafaynin walow yu'aakhidu allahu nnaasa bima kasabuu ma taraka calaa dahriha min daaba walakin yu'akhiruhum ilaa ajalin musama faإida jaءa ajalhum faina allaha kana bicibaadihi basiira aayaadka qur-aanka tirada badan liyo kuwo kaloo aynu ka tagnayba waxay tilmaamayaan asalka adduunku inuu yahay inaanay ahayn meeshii dadka lagu xisaabinayey meesha dadka lagu xisaabinayaa inay tahay maxay aakhiro halka kana dad badanoo dembiye samaynaya in ilaahay subxaanaه wa tacaala jaanis weli siin doono imtixaanaadkaa imanayaana inay yihiin un lacallahum yatadaracuun walaqad arsalnaa ilaa umamin qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون إلهي وحلي الرسل أيان ضدك وصادر ضدك وحن قبا نيبا إلهي البأساء والضراء dagaal iyo gaajo iyo dhib baa ku dhacday maxaa loogu qabtay lacallahum yatadaracuun bal inay alla u soo noqdaan oo isu dhul dhigaan mayse dhicin baa ilaahay leeyahay way sii qulubtooda sii adkaatay oo shaydaan baa wax u sii qurxiyey markii ay ilaabeen baa ilaahay yidhi wixii aanu ku waaninaynay ayaanu albaabada dunidoo dhanba u furnoo nidhi aakhiraa laydinka goynay haddaba iska barwaaqaysta markii ay xumaha kasoo noqon waayeen baa ilaahay leeyahy fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay albaabadoo dhan baanu u furay kuwa mu'miniinta ilaahay muxuu leeyahay barakaatin min aلsamaa'i waalardi baanu u furay khayr adduuniyo samada iyo cirka iyo dhulkaba khayrkoodaan u furaa ilaahay yidhi kuwa mu'miniinta ama kuwa kan abwaaba kulli shay baa la yidhi albaabadaa loo ballaqay idinku waxaad doontaan ka qaata ama ismariya ama isdila ama istaayo faidaa farixuu bimaa uutuu baa ilaahay yidhi marka ay kibirka gaadho ee wixii la siiyey ay kibir dhaafaan akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun ayaanu qabanaa baa ilaahay yidhi saawaaba kuwiiyo quustay waxaan leenahay marka ciqaabku asalkiisi waxa weeyaan aakhiro iyo xisaabtu adduunku xasanaadkiisa iyo sayi'aadkiisaba waa la isku itixaamaya wabalownaahum biاlxasanaati wالsayi'aati lacallahum yarjicuun ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى
ilaahay wuxuu kaloo tilmaamayaa dadka badh waan u kaadinayaa si ay dembigooda u dhammaystirtaan baa ilaahay yidhi kaadsigan aan u kaadiyey ma aha baa ilaahay leeyahy nimco aan siinayaye booskooda naarood baa ayaa ay buuxsanayaan walaa yaxsabanna aladiina kafaruu annamaa numlii lahum khayru lianfusihim inamaa numlii lahum liyasdaaduu ismaa walahum cadaabun muhiin walaa yaxsabanna aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun kuwa gaaloobayay u malaynin baa ilaahay leeyahy inay naga dheeraynayaan inay naga baxsan karayaan inahum laa yucjizuun jumla ismiya maca adawaati الtawkiid marnaba nama cagsi gelin karaan baa ilaahay leeyahy laakiin waan iska daynayaa baa ilaahay leeyahy si ay dembigooda u dhammaystiraan markay dembigooda dhammaystirtaanna aakhira lagu qaadaya qaarna ilaahay wuxuu leeyahay xoolahan iyo carruurtan iyo waxaana siiyey iyaga inaan ku cadaabaa baan ugu talagalay iyagaabaa cadaab ugu filan dadka inta xoolaha badan lee ku mashquusha marar badan ayay dadka kale ka hawl iyo dhibba badan yihiin ogow horta ninka xoolaha le intaad cuntuunbuu cunaa kaama badsado caloolunbuu wataa caloolla intay qaaddo waa la yaqaanaa marana intaad xidhataa buu xidhaa wurdana waxaa laga yaabaa inaad adugu kaga fiicantay laakiin wuu kaa hawl badan yahay waxay yidhahdaan sharikaadka waaweyn kuwa leh CEO-yada iyo dadkan xukumiya waxaasi 7 subaxnimo iyagu shaqada soo galaan 12 habeenimo meelahana way ka baxaan laakiin shaqaaluhu 8 saacadood buu shaqeeyaayo way iska baxaan isagu dhowr shift baa isu bedelo u joogaa ilaahay wuxuu leeyahay falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يكو عجب قليل نبا إلهي إلهي حولها يا عرورتي يا وحناسي وحامن ربابا إلهي إلهي إن يجاكو عذابه وحكرنا أن يجاكو عذابه برا ونرشا الدون وإن افتدوا صداكو بحضو يجاكو قالا آخر قال لما مركا يقول يمادنا إن عذابك ورابيه waa dhacdaa oo ilaahay waa ka warramay qaar cadaab isti'saal lagu sameeyey gunta laga gooyey dunuubtooda daraaddeed fakullan akhadnaa bidanbih faminhum man arsalna calayhi xaasiba waminhum man akhadathu sayxa waminhum man khasafna bihi alard waminhum man agraqna wama kana allahu liyadlimahum walakin kanuu anfusahum yadlimuun laakiin culammadu waxay yidhaahdaan cadaabka kaamilka ahi ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadii hore wakhtigoodii buu jiray gaar ahaan bay yidhaahdaan intii jihaadku bilaabmay nebi muuse bay yidhaahdaan baa labada dhanba soo gaadhay cahdigiisii nebi muuse fircoon iyo kooxda tan waa kii cadaabu isti'saalka lagu sameeyey la mariyey iyagun baa la odhan jiray xaggaa uga baxa gaalada anaa ku filan ilaahay buu leeyay idinku xaggaa uga baxa laakiin isla wakhtigaas isla nebi muuse ayaa la waajibiyey jihaadka iyo dadkan iyaga la isku itixaamo oo waa tii la yidhi ardi lmuqadasa adigu furo markii ay furan waayeenna tiha ay galeen kadibna yuushac ibnu nuun uu qabsaday yuushac ibnu nuun uu ku jihaatamo uu furtay bayt almaqdis wixii ka dambeeyey bay yidhaahdaan cadaabu isti'saalkaasi inta badan ma soo degee baabuljihaad baa furmay oo waxa la yidhi idinkaaba la isku keena itixaamaya saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leey walaa yaxsabanna aladiina kafaruu sabaquu innahum laa yucjizuun waaciduu lahum ma istatactum min quwa waxaan ku soo koobayaa ibtilaaga iyo imtixaanka dunida ka dhacaa macnayaal badan baa qur-aanku tilmaamaya intaa aan tilmaamay waa tusaalayaal tusaalayaashii waxay sheegayaan asbaabaha ibtilaagu u soo dego inay waxaasoo dhantay inaanay ciqaaboo qura ahayn dadku inta badan waryow ninkaa hebel nin wanaagsan buu ahaaye meel ciqaabtu beledu kaga dhacday garan maaya bay yidhahdaan kaanamaa qof walba waxaa haystaa un ay tahay balaayo gaaro ku soo degtay laakiin waxaynu tilmaamaynaa wax badan oo kala nooca ayuu imtixaanku u yimaadaa dad quroo imtixaan wada qabsadaa buu qofba si ku yahay qaar ay saalixiin yihiin oo uu si gaara ku yahay
qaar ay taalixiin yihiin oo uu ciqaab ku yahay qaar ay haafiliin yihiin oo uu tanbiih ku yahay dad qura oo wada jooga ayaa dhici kara imtixaan mar qura dhacay inuu nawciyaadkaasoo dhan tilmaamayo waxaan ku soo gebagabaynayaa markaa haddii imtixaan yimaado bikulli alaxwaal waxa waajiba in la sabro waxa waajiba inaan la calaacalin tashaki la samaynin waxa waajiba xusnu tawakul inay dadku la yimaadaan ilaahay kalsooni ku qabaan waxa waajiba inay dadku ilaahay u noqdaan allujuu'u ilayhi walistigfaar walisticaana bihi ilaahay inay dib ugu laabtaan dembigooda inay ka toobad keenaan alle kaalmo weydiistaan baryadiisa badiyaan qur-aanka dib ugu noqdaan nebiga salligiisa badiyaan toosnida badiyaan waayo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamayaa imtixaan oo dhan isku soo dar waman yattaqi اllaha yajcal lahu makhraja baa ilaahay yidhi ciddii cabsida alle ku badato albaaba alla u furaa imtixaanka waa la marin laakiin muxuu helayaa way out meeluu ka baxo albaaba alla u furaa ciddii kalena dee way dayowdaa uun waa ninkii wallaaya yidhaahdeen awr buu intuu isku xidhiidhiyey ayuu awrkii garhwadeenka u ahaa iyo kii dambu isku xidhay markaasuu yidhi meeraysta dee awrtii hadduu dabada isugu xidho meelay u socdaan male dadka barh baa tii haa galo oo meeraysiga ku jira laakiin ciddii ilaahay xasuusatee u noqota mahmaa kaanat ilmasaa'ib ilahay wuxuu leey waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja albaaba alla u fura ilaahay wuxuu leey waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra ciddii alle ka cabsata ilaahay arrinkuu u fudaydiyaa taladaa la waafajiyaa meesha ay wax ka hagaagayaan buu arkaa xalkaa u soo dhowaada waxbuu gartaa ilaahay wuxuu leey waman yattaqi illaaha yukafir canhu sayi'aatih ciddii alle ka cabsata waxaa ku dhacay oo dhan ilaahay dembi dhaaf buu uga dhigaa wayucdim lahu ajra ajarkana waa u weyneeyaa oo waa badhaadhaa waxaan leenahay markaa masaa'ibtu hadday dhacdo ilaahay wuxuu leeyahay aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun kuwa imtixaanku qabsado musiiba qabsato ee yidhaahdaba ilaahay leeyay inna lilah awalba ilaahay baa nalahaa annaga iyo adduunka iyo waxaan oo dhan rabbaa noo talinayo nala lahaa wa innaa ilayhi raajicuun isagun baananu noqonaynaa rabbaana wada leh adduun oo dhan iyo annagaba isagaananu u laabmaynaa kuwaas baa ilaahay yidhi ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma kuwa korkooda waxaa ahaaday ilaahay salligii iyo naxariistii iyo wanaaggii oo dhan bay helayaan wa ulaa'ika hum lmuhtaduun baa ilaahay yidhi waana kuwa hanuunaya soomaaliya marka waxaynu leenahay imtixaan badan bay soo martay caalamulislaami oo dhanna imtixaan badan buu ku jiraa kullu haadihi اlimtixaanaat taagani waa ibtilaa'aadka aan ka soo warramaynay waa wax dembi lagu maydhi wax dad haafiliina lagu toosin wax kuwa dembaabay dib loogu celin wax qaar saalixiin oo ku dhex jiro dadka dunuubtooda haleeshay kor loogu qaadi wax lagu rabayn wax qaado loogu soo saari wada shar maaha say dadku u fahmayaan wada shar maaha ee barh badan oo ka mid ah ayaa liislaaxina u dhacaya idan ilaahay aan ku kalsoonaanno tala saaranno kitaabkiisa wuxuu inoogu sheegayna dib ugu noqonno haddaynu liibaan aakhiro iyo mid adduunyaba doonayno وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين